بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دوبي ميديو اي ام دوبي بران كلنا سوشيال ميديا qodobada warkeenan waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta maalintii labaad Hargeysa diyaarad ku socotay hawada Soomaaliya u diiday isla markaasina dib u celisay qaabkii loo celiyay xogta iyo warbixin la xiriirto ayaan in la wadaagi doonaa ee u diyaar garooba diyaaraddaasi marka laga soo tagana madaxda urur goboleedka igaadna warmurtiyeed ay ka soo saareen shirkoodii maanta Kampala Uganda uga furmay isla markaasina Ethiopia meel cad lagu soo wada jeestay madaxbannaanida Soomaaliya lama taabtaan la dhahay isla markaasina warmurtiyeedka qodobada iyo sida uu ahaa iyo sida uu dhacay shirka maanta ayaan idin wadaagi doonaa balse intaan faahfaahinta galin adiga na daawanaya haddii tahay markii kugu horeysay YouTube-keena Dobiya Media dul imaad subscribe inoo saaran fadlan calaamad gunta subscribe taagan beelka farsi ama hamil joogto u noqon sidoo kale barta Facebook MDB follow hadana soo dhigin fadlan follow soo dhig video gulaag nasar asxaabta la sii wadaaga u sii share mahadsanid haddii aanu gudagalno sida hordhaca ku daawateen isla markaasina idiin soo gudbinay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta hawada ka celisay diyaaradii labaad ee Hargeysa ku wajahday warqoroolo ka soo baxay hay'adda duulista hawada ee dalka ayaa waxaa lagu sheegay in maanta diyaarad laga leeyahay dalkaasi Taiwan isla markaasina ay tahay midda kuwa xamuulka qaada nambarkeeduna yahay P4GA kana soo kacantay Sharjah ee dalkaasi isku tagay Imaaraadka Carabta kuna wajahday Hargeysa ayaa hawada laga celiyay hay'adda duulista hawada Soomaaliyeed oo qoraal soo saartay ayaa waxay sheegtay in hay'adda uu ka duuleysay gudashada waajibaadkeeda ee markii diyaaraddaasi laga leeyahay dalkaasi Taiwan ay kasoo kicintay isku taga Imaaraadka Carabta gaar ahaan garoonka Sharjah eena ku wajahneyd Hargeysa ee hawada Soomaaliya soo geli rabtay ayaa waxaa la weydiiyey kaargowga ee wada macluumaad inay ka bixiso balse diyaaradda ayaa diiday in ay macluumaad ka bixiso taasin ayaa keentay ayaa lagu yiri qoraalka in hay'adda duulista hawada Soomaaliyeed ay gudato waajibaadkeeda isla markaasina aysan siinin ogolaansho ay ku galayso hawada Soomaaliya dibna loo celiyo shaki ka dhashay diidmada ay diiday hay'adda weydiinta ay weydiisay kaargowga ee wada diyaaraddaasi ee Thailand ay xamuulka qaatay nooceedu yahay P4GA ayaa waxaa sababtay in aysan ka deganin halkay ku wajahneyd oo Hargeysa waxayna noqonaysaa diyaaradii labaad oo hay'adda socdaalka hawada ay u diiday Soomaaliya 24 saac gudaheeda mid ku dagi lahayd Hargeysa iyadoona xusid mudan shalay ee ahayd markii diyaarad ka soo kacday Addis Ababa loo diiday inay Hargeysa ku degto taasi oo la socdeen wafdi ka socda dowladda Itoobiya tani ayaa noqonaysa tillaabooyin guul ah ee hay'adda hawada Soomaaliyeed ee duulista rayidka ay ku tillaabsato isla markaasina ay koontaroosho dhaqdhaqaaqyada hawada Somaliland wax warar kama soo bixin taasi ayaa muujisay in hawada Soomaaliya ay ka mas'uul tahay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya urur goboleedka igaad madaxdeeda ayaa shir degdeg ah Kampala ugu furmay maanta isla markaasina laga soo saaray warmurtiyeed iyadoona shirkaasi goobjoog ay yihiin ururada joogtada sida kan Midowga Afrika kan Jaamacadda Carabta kan Yurub iyo sidoo kale qaramada midoobay waxaana diiradda lagu saaray xiisadda geeska Afrika ee ka soo aloosantay kan ay ka taagan Ethiopia iyo Soomaaliya kulankaasi oo Kampala meetada 42 ee ka dhacay ayaa warmurtiyeed laga soo saaray isla markaasina nuxurkiisu uu yahay in Soomaaliya madaxbannaanideeda ee lama taabtaanta isla markaasina aan lagu xadgudbin isla markaasina midowga urur goboleedka igaad ay ku sheegeen qoraalkooda ka soo baxay in aan ahayn Soomaaliya meel la iska wada galo sidaas darteedna loo baahan yahay in la ilaaliyo ixtiraamka dowladnimo ee Soomaaliya waxaana sidoo kale warmurtiyeedka noqol ka mid ah oo u muhiimsan lagu sheegay in haddii heshiis lala galayo Soomaaliya ay tahay in la soo maro dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya wax walba
oo heshiis oo Soomaaliya lala galayo aysan ahayn in irid waliba Soomaaliya laga soo gali karo, ayay yidhaahdeen warmurtiyeedkii ka soo baxay urur goboleedka IGAD oo Kampala shirkooda 42 ee maanta uu qabsoomay. Waxaana oo muhiim ahaa warmurtiyeedkani in si meel cad ay ugu soo wada jeesteen in duulaan cad lagu soo qaaday dowladda Soomaaliya, ayna tahay Itoobiya mid ku soo xadgudubtay jiritaanka dowladnimo iyo madax bannaanida geyga Soomaaliya.